بسم الله الرحمن الرحيم digniin loo dirayo xubnaha ka tirsan ciidamada qalabka sida ee sida sharci darrada ugu haysta guryahooda hubka noocyadiisa kala duwan oo ka badan difaaca nafta hubkaasoo loo adeegsan karo ujeedooyin guracan oo ka baxsan difaaca qarannimada iyo sugidda amniga dalka waxaa jira in kiisaska la hor keeno maxkamadda ciidamada qalabka sida intooda badan hubka lagu galo dambiyada ay yihiin hubka ciidamada qalabka sida oo leh shaabadii ama astaantii ciidamada qalabka sida iyadoo si qarsoodi ah loogu iibiyo hubka ciidamada qalabka sida suuqyada sharci darrada ah ee cirtoogtayaasha teeda kale waxaa jira dad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida oo haysta hub culus oo sharci darro ah kuwa ciidamada ka mid ahna ay si qaldan ugu adeegsadaan hubka dawladda qaab aan nidaamka dawladnimada ku habboonayn oo lid ku ah iyagoo ku xadgudbaya xeerarka iyo sharciyada dalka laguna eedayn karo qodobada 186 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida iyo qodobka 27aad 34 xeerka nabadgelyada guud iyadoo hubkaas uu qeexayo qodobka 541aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed haddaba dhammaan taliyayaasha colalka ciidamada qalabka sida waxaa laga doonayaa in ay sugaan tirakoobka hubka iyo gaadiidka gaashaaman ee ciidamada qalabka sida iyo dhaqdhaqaaqoodaba isla markaana ay ka joojiyaan ciidankooda gaadiidka gaashaaman ee iska yaala xaafadaha magaalada kaasoo laga yaabo in ay adeegsadaan dad ka soo horjeeda nidaamka dawladnimada ama loo adeegsado dana gaar oo kale sidoo kale xubin kasta saraakiil iyo ciidanba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida oo ku takrifasha burburisa ama iibsata hubka iyo gaadiidka ciidanka ay si degdega ugu soo gudbiyaan xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida si sharciga loo waafajiyo dambiilaha looguna ciqaabo ciidanka intooda kalena ay uga tusaale qaataan cawaaqib xumada ka dhalan karta falalka noocaas oo kale ah fiiro gaar ah wuxuu xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida baaris iyo dabagal ku samayn doonaa hantida ciidamada qalabka sida ee sida aan habboonayn loo isticmaalay iyadoo maxkamadda ciidamada qalabka sida la tiigsan doono cid walba oo ku takrifasha hantida iyo agabka uu ciidanku leeyahay wabillahi tawfiiq